federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka Puntland sidoo kale ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiintii xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore barnaamijyadii hore madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxa ku weheliyay barnaamijka ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa waxaa kulankaas looga wada hadlay gogashii dowladda Puntland ay u dhigtay in arrimaha Soomaaliya guud iyo kuwa gaarka ah muddooyinka soo socda looga arinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyay gogashaas wuxuuna ku baaqay in gogashaas Garowe la qabto wuxuu sidoo kale prime minister ku-xigeenka uu xil saaray diyaarinta ajandaha gogashaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tagay kadib waxaa la falanqeeyay ajandayaasha hortaminta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogashaas looga wada hadlo oo u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido waqtiga ku habboon ee gogashaas looga falanqeyn doono arrimaha hortaminta u leh Soomaaliya insha Allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogashaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogashaas Garowe ka dhacdo marxaladaha adag ee ku soo foolay qarannimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horsocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah waxaan rajaynayaa gogashaas inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuuda iyagoo nabad qaba hadda ku tagay Garowe uga noqdo in iyagoo nabad qaban ay ku soo noqdaan ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadka wadan u ah haddaan reer Puntland nahay aan ku hadlaay magaca dawladda insha Allah waxaan u diyaar garoobeynaa qabashada gogashaas waan u rajaynayno guul oo aan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah